qurxa kirbaashaya hal igu qaato ruuda la isku sheegaa fiidiyoa soo arkay ninkeedii ex-keedii isku noqdeenaa la dhahay kaas hadaa ku noqotay wax dhimatay aad tahay isagana wuxuu kugu soo noqday inuu ku jiro maxaa uga baahan tahay waaya ugu noqotay xoolaha. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعن أو ونكسن داوديال ميل كستو هذا أدونك كجوكتان هل كان نجد داونيسان وبرتي يوتيوب كان كلنا إبراهيم جنال sidoo kale hadda waxa si toos ah nooga daawanaysaan isla barteena Facebook Burhan Channel ugu horeyntii ummadda muslimiinta ah gaar ahaan shacabka Soomaaliyeed waxaan leeyahay Ramadaan Kariim waxa maalmihii la soo dhaafay baraha bulshada lisla dhexmarayay Amiira Qurux in ay ku laabatay ninkeedii hore Amiira ayaa ah gabar YouTuber ah sidoo kalena caan ka ah baraha Snapchat-ka TikTok-ga iyo waliba Instagram-ka intiina badanna waa wada ogtihiin in Amiira iyo saaxiibkeed ay mar hore kala tageen sidoo kale waxaa jiray dhowr muuqaal ee Amiira ay soo gelisay barteeda YouTube-ka oo ay uga hadlaysay xaajigeedii qaabka ay ku kala tageen Amiira ayaa muuqaalkeedii ugu dambeeyay waxa ay ku soo bandhigtay cadeymo iyo waliba sababta uu dagaalka ku bilowday Hanad oo ahaa xaajigii Amiira ayaa asagana waxa uu bartiisa Snapchat-ka soo dhigay asagana qoraale kale uu sheegayo inay sabab u ahaayeen inay Amiira ku kala tagaan mar raba hadda in aan taariikhdaas dib ugu laabto maxaa yeelay barnaamijkeena ama mowduuceena maanta kaliya wuxuu ku saabsan yahay ma isku laabteen ee furiinkoodii iyo qaabkii ay ku kala tageen nama quseeyo barta TikTok-ga ayaa maalmihii la soo dhaafay waxa ay noqotay meel dadka Soomaaliyeed ee baraha bulshada caanka ka ah ay lacag ka sameeyaan lacagahaas ayaa waxa lagu helaa qaab gifti ahaan ah tusaale laba qof ayaa game wada ciyaaraysa su'aalo xasaasi ah ayna isweydiinayaan sidaasna waxay ku helaan ilaa $2,000 sidaasi waxa sameeya dadka magaca iyo waliba sharafta ku dhex jooga baraha bulshada halka kuwa kalena ay sameeyaan inay u kala baxaan qabiil iyo qabiil tusaale lax iyo wan taasi oo aan ula jeedo qabiilada ay ku kala tartamayaan magacyada ay leeyihiin sidoo kale dad waxa jira marka ay rabaan inay gift qaataan kaliya soo fariista halkaasina uga hadla arrimo ay dadka Soomaaliyeed ay aad u wada jecel yihiin waxaana kamid ah Amiira ayaa waxa ay ku laabatay ninkeedii hore sidaas ayana lacaga waxa ay uga sameeyaan bartaas TikTok-ga maqaalkaas yar ee aan uga hadlayo TikTok-ga ayaa waxa uu ku saabsan yahayba mowduuceena caawa ama maanta gabar TikTok live soo gasha oo inta badan luqadda Carabiga ku hadasha ciyaarana la dheesha dadka ajaanibta ah kuna nool dalka Jarmalka waa sida aan xogta ku helay ayaa waxa ay tiri Amiira waxa ay ku laabatay ninkeedii hore haddaba waa kana ee muuqaalka ila daawada yogan Amiira qurxa kirbaashaya hal igu qaato ruuda la isku sheegaa fiidiyoa soo arkay ninkeedii ex-keedii isku noqdeenaa la dhahay gabadhan weydiiyay siiqaanin oo caan ah waxay dhahday haa way isku laabteen ani marka waxaan leeyahay Amiira qurux Soomaaliduna horta ku gurmato ku ilmaysay maalinta ninka ilmaha kugu dafray ninkii shalay ilmaha kugu dafray ku dhahay kuma rabo kaama dhalin naag adiga oo foolanayo asagana aroos galay see ugu noqoto maskaxda ma badalada dhaandhaamad maata xoolo maata meel dar ma laga soo habarta ma ku soo habartay ninkii shalay ku dhahay ilmahaaga aniga ma dhalin oo biil ma siinay oo warqada kugu soo diray post ku soo dhigay kaas hadaa ku noqotay wax dhimatay aad tahay isagana wuxuu kugu soo noqday inuu ku jilciyo raamad labaad ma saddex habar oo ka dhalo ku dhaho fuck you ku soo fadhiisan ku dhaho kufro nacasata wallahi hadee ninkaas ku noqotay nacasata maxaa uga baahan tahay waaya ugu noqotay xoolaha tahay naga tag waa ترك مياه ما اسكو كلسونة مياه عطا عادي بهدلنا صاحب بهدلنا ذا قالوا ريكتي حارتنا قصري مرسية ماشي هرتي بتكتب هو يذي لأضحي قصر باي مرسل هو أنا ماشي سوق أنا بعمل الحين وحرن تايم والد أضو راني يسوق فيلم بلدها الدكتورية يا ماشي أنا بهدلنا سوق أنا نو قرية مركز واحد بهدلني ما فهمتي شو مركز يجي وريت صاحب أنا ماشي نقصر لكم سوق واحد قدام قاعد هو يذي لأضحي ماشي ناق وأنا قصر مرسية وجه قصر بمرسل أركان في ذا قصر هيا قبيلك شكل المها كوس أونية المها كوس أونية المها يريسك مرت باكوس أونية إيدو يقيلن الصا قصل بأو مرسم قصل كان اسمرني ياكم قروح بالناضان فالحمي كسي قاضان بهدلاب بكسي قاضان واه بعضنا رش كده أحسن بقى مركز وحي ربا أنا يجيبوا كل نقطة ها سجاش كوترو كم يا اسكو ما كرسوند ميا
waan isturkeenaya maahana khatarta cad waa hadda waa iskala kicinaya aniga iska daa wax kale maxaa rabtaa meeshaan China iskale meeshaan waxay la dhigan tahay telefishinada oo ka soo hadlaya meel telefishin caalamka ku arkaa ko foolxumada marka la rabtan Afrikaan waa lagu leeyahay Afrikaanka kala soo gudba Afrikaan kala ku arkaya foolxumada iyaba waxa la dhahaa tan haddii Ilaahay ku rooyay waxa lagu leeyahay haddii Ilaahay ku rooyay foolxumadan Soomaali waa Soomaalida ka soo gudbaysay ko kala ku arkaya Soomaali tan foolxum qabiilkaas waa adi dhanba waa bahdilan tahay be kawaanka absaarantay mee qof ku soo arkado bahdilan ilaah wax foolxun ma abuuro laakiin meeshaan aqasirka soo marsanaysid maqaaxidii hooyadiin ma aha asxaabay raashada garaaca halka markaa soo fadhiisanaysid waa inaad shidan tihiin kala kacsan tihiin qurxoon tihiin afkina dhigina ismaqleen maxaa la qaylinaysaa marka ana waxaan booyo TikTok yaro habiyan waay intaan wareeg usbuucaan la joogo anu meeshan fasax loo soo qaataa waa idinku soo fasax qaataa اسبوعنا عرفت لا تشوغا تيك توك عرفت اسبوعنا idinka laba isbuuc idinka laba isbuuc xagga labada isbuuc idinka maqan dhogor baa idinka marta dhogor ma asxaabta dhogoriga marto naagaha qanay leef ku jira live kaas inta la soo karo al taaqada la soo taaqada ka soo qabanaya reebel markaas ay tigta la iska dhigaya qof baa lagu dhigaya naya silkaaga naya ilmahaaga naya gurigaaga no afarta waxa laga sheekarayaa cunto iyo siil iyo ilmo yar iyo haddii Ilaahay ku roon yahay ilmahaaga kan iyo fataalad baa tahay iyo ninkii baa kaa tagay iyo anigu waxaan garan waay ayahan goorma dhamaan isku caydeen aniga marka maayado laga caynay maqlo waa mahadsantahay mac salaama because aniga waxaan ba ka daalaybo wax la dhaho dhalayahay sharmuutay yahay hooyada wase jaahiladii jaahirada dhashay gurigaaga xunka wase khoobe ma arkin miya naa iska hagaaji naa ninkii baa ka cararay وناغا Soomaali ayda isku caaya ilmahaaga waa wacalo waca bal ilmo yaro sabiyo maxaad galabsat ya maxaad galabsat waxba ilmahaaga waa ana dhalo weeyaan naaya ilmahaaga ilmahan maxaad ka rabtiin ay min kan waxay wala noqotay waxaas wax iska caadi imika wanaad sanadkan bal cayo cusub wanaad keentiin mid kale waxay leedahay naaya naama adoo saa u foolxun kulligii waa foolxuntiin naagol meesha daqasil soo marsato diyaani darmufeed faraha caawud bilaa mashadarji meesha soo galay asaabo meesha iskaga jiro raan isku fulan heeska dhiga iska baashaalaya asxaabta iska sheekaysanayo ataf lagu soo dhaha waa turkaysantaa afartan ka bay heesay wuxuu jiraan kalsooni ma jirta miya xarabtiin inaad daaqadeeda la soo galo naw anu ummadan runta idin sheegayaa Soomaali waa iska aniga laakiin afkaas la Soomaali ka ahay qalbigeyga dhaqankeyga niyadeeda kulli Soomaali ma ahan runta idin sheegaya aniga حتى ساء فكروا صومالي اسكو فكر منهن اسمه فعلنا موقت اسكو فكر منهن هذا صومالي اسكو فكرنا لك انت فطاقه فرتو ميا عرفت قف دن او تيك توك افرتو قبيل كو عايو اما ان قناق لو عايو انت halka in soo fariisto shaashada wada garaac asxaabe aan waxa aad dhihi lahaa hey heblaha soo qabsadana hey hada ku soco ha 5 daqiiqo haysta ku soco adigana hey سيا كسيحتي كلا سيا كسيحتي مركا أفرتن كوا هالك عشانكوا قصر ذي مرسية وعنتينين هالك أفرتن كقيل لسه سيا كسيحتي كسر عادي أنا ها عادي أنا كسرنا يا هبلو ورمانة قوري بالرمضان حتى تكحشون ويدين رمضان كيف يسومالي ذيك حشون ويد ميا ضربت ومضى رمضان صوف فرده ماشي أنت بيش رمضان العابدو أو إلهي العابدو الله يسكأ مصلها لفاتحيسن لها kaasi wuxuu ahaa muuqaal ay uga hadlaysay amiire iyo ninkeedii hore ayaa isku laabtay laakiin halkan waxaan idinkaga cadeynayaa in warkaasi uu sal iyo raad lahayn tusaale amiire waxa ay joogtaa dalka Malaysia haddii ay ninkeedii hore ku laabatayna dabcan inay soo fariisato ayay waxa ay dhihi lahayd aniga iyo xaajigeygii hore waan heshiinay sababna labada qof ee kala taga biri haddii ay isku laabtaan عيب ما أهان سيدة دينتين إسلام كا قروح ضبطن أي نو شيء دلاخد وصدح جير هل مرنا قف كدمر كأهل لجمو وذفوري كرو صدح دلاق آيات كم إذا قرآن كان كريم كأه أي شيء الدلاق مرتاني
oo ay micnaheedu tahay haddii furiin la sameynayo waa in ay 2 jeer kala dhacdaa. haddaba waxaa keenay in aayaddaas aan idiin soo daliilsado ayaa ah bulshada ma ogo inta ay isku fureen, sidaas darteedna wax saansaan ah ama malo loo malayn karo in ay amiiro qurux ninkeedii hore ku laabatay ma jiraan. waana sababta aan muuqaalkan yarka ah idinkugu soo duubay inaan uga hadlo. abbaayo waxa daliil aad u soo qaadatay in gabar ay saaxiibo yihiin amiiro qurux ay warkan ama xogtan kuu sheegtay, laakiin ogow wax kastoo birbirqa daha ma ahan. intaasna waxaan ku raacinayaa hubsiimo hal baa la siistaa. daawadayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkeenii aan uga hadlaynay arrin ku saabsan amiiro qurux oo maalmahan baraha bulshada lisla dhexmarayay. sidoo kale haddii aad muuqaalka intaanba aad ku soo gaartay waxaan kaa codsanayaa mar kale inaad muuqaalka like saarto, aadna ka mid noqoto kumanaanka kun ee ku xiran baraheena YouTube-ka iyo weliba Facebook-ga. waxaa inii soo diyaariyey anigoo Burhaan Cali ah. Burhaan Janaalna waa ka daawanayseen. mahadsanidin.